سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. سدوا صاحبيال ومركلي مقال عصب مقال كنا ما تحن قال دونا ما نكشرح دونا فرسمدي عصبي دي لجوسو كدي واتساب هايد إن أفر موبيل لجو استعمالك كرو هالواتساب فرسمدن أيا دوان ملكلا فيسبوك وكشري يعني إن واتساب لجوسو كدين دونا إن أفر موبيل هالواتساب لجسو كعسن دونا يدون على فريمي هربحين oo dhammaanba waxay fariimay ku jiraan afarta mobil bas isku mid ah looga wada isticmaali karo. Farsamadan ayaa runtii dad badan waxay arkeen inay dhibaato tahay, dad badanna faa'iido way u arkeen. Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee farsamadan laga dhaxlayo ayaa waxay tahay shirkadaha oo kale halkii markii hore hal qof uu nagu wada jawaabay dadka imika afar qof ayaa u jawaabi kara oo afar mobil ayaa la gelin kara. Sidoo kale haddii aad haysatid hal mobil oo Android iyo mid iPhone ah oo rabtid inaad labadaba WhatsApp-ka ka wada isticmaashid labadiiba waad isticmaali kartaa. Inkastoo awoodda uu leeyahay WhatsApp-ka uu ku samaysan yahay ama WhatsApp-ka uu ku jira number-ku oo inta kale aad ka saari kartid oo qofka admin-ka ama maamulaya WhatsApp-yada kale uu yahay qofka WhatsApp-ka number-kiisu ku samaysan yahay. Haddaba ugu horreyn aynu guda galno muuqaalka. marka ugu horeysa haddaba WhatsApp-kaaga update baa sii soosan doontaa si aad farsamadan u aragtid. laga yaabaa haddii uu ku update gareysnayn inaad farsamadan arkaydo. marka ugu horeysa haddaba imka laba mobil baan hayaa laakiin si suuragal ima noqonayso inaan kamarad ku duubo balse waxay suuragasho inaan screen recorder ku duubo. marka kolley isku day inaad si fiican fahantaan. marka ugu horeysa waxaad soo furan doontaa WhatsApp-kaaga kadib meeshan waa iska sii dhaafin doontaa maadaama wax WhatsApp inoogu jirin. agree and continue kadib allow baa oran doontaa. marka hore meesha waxaanu ka gelin jirnay number oo numberkaaga code-kii noogu soo diray. imka hadaynu numberkii gelino oo code-kiina loo soo diro qofka kale ee isticmaalay si automatically uga baxaya. balse wax number ma gelin doontid kaliya waxaad tagi doontaa saddex dhibcood ee geeska midig yaala meesha ugu sarreyso oo ah meel lagu soo kordhiyay oo ah linki to existing account meesha ku qoran tahay ku dhufan doontaa. meesha markaad ku dhufato waxaad arkaysaa inuu keenay meel iskaana oo iskaanka aynu ka qaadano. haddaba marka sidaas samaysid mobilka kale waxaad mobilka kale WhatsApp-ku ku jiro WhatsApp-ka aad rabtid inaad kan kale gelisid mobilka uu ku jiro ayaad soo qaadan doontaa. mobilka kale markaad qaabkan u soo furatid WhatsApp-ka ayaa tagi doontaa. imka waa kan WhatsApp-kii saxdii aynu rabnay inaynu mobilka kalena ku isticmaalno kan inoogu jira. marka WhatsApp-ka kale saa u timaadid saddex dhibcood ee geeska midig yaala baad tagi doontaa meesha ku qoran tahay linked devices baad ku dhufan doontaa. kadib linki ee device baad ku dhufan doontaa. kadib wuxuuna leeyahay use mobile data. meesha haddaba scan kama qaadan karo oo kaama sawiran karo qof mobilkaaga loogiisa aan garanayn ama haddii uu kugu xidhay fingerprint. meesha fingerprint-ka baad gelin doontaa kadib waxaad arkaysaa inuu nasiinayo scan-ka baad qaabka uga qaadan doontaa ood kii kale ku toosin doontaa. sidaana WhatsApp-kani wuxuu u gelmi doonaa mobilkii kale. saragtaan imka loading buu ina leeyahay oo waxay noo socday chatiskii dhammaanba imka halkan wuxuu naga leeyahay in mobilkii kale uu soo galay Android 13 ayaa soo galay oo active ah. dhammaanba fariimaynu bartan ka arkanay sidoo kale kan kale waynu ka arkanaa oo qaabka baynu laba mobil ugu wada isticmaali karanaa ka kale. imka kan kale oo kale hadaynu ka eegno link device male oo waa kii aynu ka soo copy gareysanay. imka mobilkan originalka aynu ka copy gareysanay waxaynu awood uga leenahay inaynu ka kale ka saarno. haddaynu tagno saddex dhibcood ee geeska midig yaala meesha aynu scan-ka ka dalbanayna link device ku dhufano waxaanu arkanaa inuu Android ku jiro 13. kadib waad ku dhufan doontaa log out baynu awood u leenahay oo inaynu ka saarno. imka haddaynu log out nahno si automatically keena kale uga baxmi doona. saragtaan bay imka si automatically keeni kale uga baxmay oo waxaad ka maamuli karaysaa ka originalka. marka waxaad ogoshahay unbaa keliya lagu isticmaali karaa mobilkan. inaad adeegooda faystaynaan filayaa intaasi aan kusoo gabagabeyn doona muuqaalkeenan. fadlan haddii tahay boqoshadaadi ku subscribe saar videogan like saar aad iyo aad baad mahadsantahay.